بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين هدي أن حكوا بين دكسيو حالة جود عافماد دلكا ودن كأن سومالي لاند وحن أوران كرا حالة جود عافماد كوي ونكسنتهاي وسارد هرمارين تعافماد كنا وعي شقين إنسا يدو يكجرتي حالة دو دينا emergency جا مدينا يقول مدك دقدقة وحنون كيد كوفيد-19 كلا حريرة haddana sidaas la mid ah waxa socday hawlihii kale ee caadiga ahaa ee wasaaraddu waday dhinaca daaweynta iyo ka hortagga iyo talaalada iyo dhinac walba ah muddo dhaweyd gobolada dalka oo dhan waan soo marnay aniguna waan soo maray wasiirkuna waa soo maray waxa aanu soo indhaynay oo aanu ku kurgalaynay xaaladda guud ee dalka iyo muddadii emergency-ga lagu jiray bal sida uu u saameeyay xarumihii hooyada iyo dhallaanka cusbitaaladii iyo guud ahaanba ummadda aanu u kuurgalayno aanu soo indhaynay waxaa muuqataa in xaaladda guud ee caafimaadka ee waddanku ay wanaagsan tahay xarumihii waddanka hore uga shaqaynayay oo dhan iyo qaar kaloo lagu kordhiyeyba waa ay shaqaynayaan waxaa waddanka ka shaqeeya cusbitaallo ilaa dhowr iyo 20 cusbitaal ah waxaa shaqeeya xarumo ilaa hooyi iyo dhallaanka kuwa la yidhaahdo ama MCH-da oo ilaa 200 iyo konton xarumooda waxa shaqeeya meelo la yiraahdo helisbos ama ruga caafimaad oo ay wasaaradda hoostaga oo iyaguna ilaa 100 iyo kontomeeya ayaa waddanka oo dhan ku baahsan oo shaqeeya waxa jooga khibradlayaal ama shaqaale caafimaad oo xirfadlayaal caafimaad ah oo tababaran oo ka shaqeeya meelaha oo wadeega dadka dhammaan xarumahaas iyo cusbitaalada waa ay shaqaynayaan waxa kale oo sidii aad ogeydeen kor loo qaaday awoodda shaybaadh ee cusbitaalada dalka gaar ahaan dhinacan xanuunadan cusub ee fayraska ee uu ka mid yahay kii imika jiray covid-19-ka iyo kuwa la midaba iyadoo kor loogu qaaday awooddoodii shaybaadh oo lagu kordhiyey mashiinada waaweyn ee PCR-ka la yidhaahdo oo ogaada xanuunada kala duwan ee fayraska iyo bakteeriyadaba kuwaas oo ilaa 4 cusbitaal oo waaweyn la dhigay cusbitaalka Hargeysa cusbitaalka Boorama cusbitaalka Burco iyo cusbitaalka Berbera meelaha kale ee Laascaanood iyo Ceerigaabo kalena iyagana awooddoodii shaybaadh kor baa loo qaaday iyada oo mashiino kale oo la yiraahdo gene expert lagu modulate gareeyay ama lagu xidhay inay soo saari karaan ama ay ogaan karaan xanuunkan la yiraahdo covid-19 oo loo geeyay cartilage-ka ay u baahnaayeenna waxa la bilaabay hawlihii oxygen-ta in la rakibo mashiino oxygen oo waaweyn oo mashiinkii ugu horeeyay Burco lagu xidhay Hargeysana uu mashiinkeedii imika uu yaalo oo la doonayay isagana in la rakibo gobolada kalena aan doonayno inaanu mashiino oxygen oo waaweyn oo kuwa dhaliyo oxygen-ta aanu gobolada oo dhan aanu geyno oo bilowgoodii horena u yimid intii kalena ay soo socoto sida aad ogtihiin waxa la qaybiyay gaadiid amba aanu qaybino soo yeegnay iyagana sida ay u howlgalayaan gaadiidka ambulance-ka oo iyaguna wax weyn ka taray hawlihii caafimaadka socday guud ahaan xaaladdu halkaas ay maraysaa haddii aan wax yar ka idhaahdo dhinaca xanuunkan imika dunida saameeyay covid-19-ka alxamdulillah aad iyo aad ayuu hoos ugu dhacay dabayaaqadii bishii 7aad ilaa bishii 8aad inta ay tahay kaysasku mararka qaarkood 0 bay haayeen mararka qaarkoodna qof iyo 2 iyo 3 ayaa la helayaa wax kor u kac ah oo weyn oo jira ma jiro laakiin waxa weeyaan taa macnaheedu ma aha xanuunkii uu dhamaaday xanuunku wadamada jaarkeena iyo dunidaba kor buu u kacay marka waxaan doonaynaa in aynu kor u qaadno feejignaantii iyo wacyigelintii iyo hawlihii kale ee ay wasaaraddu haysay ee lagaga hortagay xanuunkan iyadoo oo kaashanaysa qaranka oo dhan marka feejignaantii waa halkeedii wacyigelintii waa halkeedii in diyaar garow oo laga diyaar garoobo xanuunku haddii uu waji cusub la yimaado halkeedii bay maraysaa marka xaaladda guud waa caynka xaaladda xanuunka covid-19 kuna waa caynka marka waxa weeyaan hoos buu dhacay laakiin isma dhiganayno aad iyo aad buu hoos u dhacay aad iyo aad buu hoos ugu dhacay marka aan leeyahay waxa weeyaan marka ilaa 100 case 60 case la baaro mararka qaarkood waa negative oo cidba lagama helayo
halkii markii hore marka aynu 100 qof aynu baadhno amba 30 qof aynu helaynay amba 27 qof aynu helaynay maalmaha qaar koodna 40 ba aynu helaynay marka waxaad garan kartaa de inta u dhaxaysa marka aad buu hoos ugu dhacay taa macnaheedu laakiin maaha xanuunkii wuu tagay maaha xanuunkuna adduunyadu way isku xidhan tahay adduunyo global aynu joognaa haddii uu adduunyada ka jiro xataa haddii inaga laynaga waayo oo uu dhammaado waddanka jaarkaaga hadduu ka jiro si dhib yar buu kuugu iman karaa marka nihayaddu waxa weeye xanuunku wuu yar yahay laakiin taa macnaheedu ma aha waa uu tegey waanaynu kor baanaynu u qaadaynaa waanaynu libinlaabaynaa wacyigelintii iyo feejignaantii aynu marka horeba ku jirnay waxbarashadii waynu furnay laakiin waxaynu u furnay iyada oo aynu raacinay hagayaal ama jiheeyayaal aynu raacinay oo guidelines aynu raacinay waxa weeyaan waxyaalaha aynu waxbarashada raacinay waxa ka mid ahaa in ardayda la kala durkiyo oo diskigii 3 qof ay fadhiisanayeen 2 qof la fadhiisiyo waxa ka mid ahaa in aynu kor u qaadno wacyiga ardayda iyo macallimiintaba waxa ka mid ahaa in xumadda laga eego ardaydu markii ay soo gelayso taas oo bilaabantay waa ay bilaabantay waynu wadnaa iskuulladu waa meel ay dad badan isugu imanayaan iskuulladu ku fiday iyo iskuulladu ku faafay midna ma odhan karno xanuunku waxaynu gabigiisuba uu yaryahay laakiin waxa weeyaan waynu feejignaan baynu ku jiraynaa baan idhi marka ta aan idhi ee aynu sheegnay taa weeye ugu dambeyntii mudane agaasime maxay tahay fariinta ugu dambayseed bulshada waqti xaadirkan aad u dirayso goobaha Soomaaliland markaad suuqyada marayso lama arko dadkii oo afsaarkii xidhan iyo gamcihii xanuunadan lagaga hortagay fariinta aan bulshada Soomaaliland u dirayaa waxa weeye fariintii aan ku soo gunaanaday markii horeba warbixintii aan idin siinayay ee ahayd xanuunku wuu inaga yaraaday laakiin inaga muu tegin sidaa daraaddeed waxaynu u baahannahay inaynu feejignaantii aynu ku jirnay halkeedii ka sii hayno ama aynu kor u qaadno si aanu mar labaad inoogu soo noqon waa in ay bulsho iyo dawlad iyo qaranba aynu qaadanaa mar walba wacyigelinaha ka socda wasaaradda horumarinta caafimaadku ay soo gudbinayso wasaaradda horumarinta caafimaadku waxay wadaa weli wacyigelintii ay waday waxay wadaa inay bulshada la wadaagto mar walba heerka uu xanuunku marayo waxa ay wadaa inay mar walba update gareyso bulshada oo ay warbixino joogtaa siiso marka waxa aanu leenahay in ay dadweynuhu weli ay guntiga dhiisha iskaga dhigaan oo ay qaataan nidaamkii hore ee aynu ku soconoonay isdhiganin oo aan maadaama la fasaxay oo kor loo qaaday ama waddanka laga qaaday restrictionadii jiray taa macnaheedu ma aha inuu xanuunkii naga tegay dadku waa inay feejignaadaan ardayda iyo meelaha goobaha waxbarashadu waa in ay iyaguna feejignaantaa qayb ka qaataan waa in ardayga xumadiisu kor u kacday dib loogu celiyaa oo la yidhaahdaa ama dhakhtar tag ama gurigii joog inta ay xumaddu kaa tegayso waxyaalahaasoo dhammi waa waxyaala wasaaradduna qaadanaysa dadkana loo baahan yahay inay iyaguna qaataan marka weli waynu si feejignaan baynu ku jiraynaa baaritaanku waa iska caadi de waxa weeyaan hantidhowrku waxa uu leeyahay jadwal u qorshaysan oo wasaaradaha marba uu dee wax ku eego taasi waa wax caadiya hantidhowrka dowladda iyo ka-hay-adaha iyo kuwo kaleba way noo yimaadaan waana soo dhoweynaa waana naga tagaan ma aha hantidhowrkii koowaad noo yimaada taa khilaafka wax khilaafoo jiraa ma jiro haba yaraatee wax khilaafoo jiraa ma jiro wada shaqayn fiican ayaa naga dhaxaysa wasiirka wax dhibaato ah iyo wax khilaafa iyo waxaan weligay ku wada hadalina ma jiraan taasi waa iska hadalka uu haday meelaha ka socda in fariimada u direen wasaaradda fariimo soo diray xukuumadda maxaad kala socotaa
horta wasaaraddu iyada ayaa ka mas'uula caafimaadka hadduu public yahay oo caafimaadka dawladda hoostaga yahay iyo hadduu private yahayba caafimaadka waddanka iyada ka mas'uula waxa weeyaan annaga dacwad na soo gaadhay oo rasmi ah wasaarad ahaan ma jirto miidiyuhuna dee meel loo dacwoodo maaha marka anigu waxa aan odhan lahaa waxa weeyaan nidaam bay leedahay haddii qofku uu wax tabanayo qaab uu u soo gudbiyo waxaan jeclaan lahaa in qofku uu u gudbiyo nidaamka wanaagsan ee uu cabashadiisa uu u soo gudbin karo is-eedayntuna waxba ma keento run ahaantii anigu ma aanan dhagaysan laakiin sidaa aad ii weydiinayso waxay dad ka cabanayeen baa la yidhi heshiis ay la galeen cusbitaalka kaasina dee waxaa la eegayaa uun nidaamka caafimaad nidaam baa jira nidaamka caafimaad uun baa la eegayaa cusbitaalku waa cusbitaal brivatekuna waxa weeyaan dee wuxuu wax ku daweeyaa waa lacag weeyaan marka hadduu qofku cabanayo waxa uu marayaa nidaamka cabasho ee toosan ee wanaagsan ee isaguna uu xaqiisii ku heli karo qofka kale ee dhakhtarka ah ama dhakhtarka kale privateka ah ama publica ahina dee xaq iyo xaqiisii uu ku heli karo marka labada qof hadduu dhakhtar yahay iyo hadduu qof caadi yahayba xaqoodun baa la eegayaa haddii uu xaq u leeyahay wuxuu ka cabanayo waa la soo dhaweynayaa